dowladnimadana Soomaaliya waxa laga yaabaa in dowladda shisheeye ku xiran tahay oo ku tiirsan tahay waxa ay dhahaan ku tiirsanaanta bini'aadamku sideedaba waa saddexdan nooc waa saddex qaybood mar waxa la yiraahdaa waa xarafkan t ama xarafkan ta'da loo yaqaano marna waa xarafkan loo yaqaano eeda oo kale ama a'da loo yaqaano Soomaali ahaan marna waa xarafkan hajta loo yaqaano ama hada waa saddexdaas xaraf inaad ku tiirsanaato bini'aadam waa un midkood waa marka koobaad ee marka ku tiirsanaantaadu ay gaarto heerka ah xarafka t-da oo qofkii noqdo tiir ku noqdo adiguna aad noqoto qaybta koro dadban waxa imaan doonta qofkaasi in uu qadar ama ku dhacdo ama uu dan yeeshaa dhici karta marka haddii t-da midda hoose taagan tiirka taagan laga saaro kan kore dhulku toos ugu dhacaya iyadoo wali wax u dhaxeeya la arag ayuu dhulku dhacay marka qofkaasi markasta uu ama dan yeesho ama qadar rabbi ku timaado adigu dhulka toos ugu dhici doonta waa marka labaad waa xarafkan eedoo kale eeda waad aragtaa laba tiiro isku tiirsan iyo xiriir u dhaxeeya way oo dhaxda ka mara labadiina waa isku tiirsan tihiin xiriirkaasina waa idin ka dhaxeeya korna waad isaga tiirsan tihiin mid kamid ah markuu meesha ka baxo tiirka kale uu dhacaya laakiin sida kii hore dhulka toos uguma soo dhacaye dhinac ayuu u liicaya xogaa markaas oo ku tiirsanaantaadu waa ay ka yara duwan tahay sida t-dii hore haddii ku tiirsanaantaadu ay tahay sida hajta ama ha'do kale waa laba tiir oo isla eg oo mid walba iskiisa u taagan haddana xiriir ka dhaxeeyo waa sida saxda oo bini'aadanka la rabo inaad ula noolaato sida hajta kale waa kan ugu fiican baa la yiraahdaa adigu tiirkaas geeskaas taaganaad tahay iskaadaad u nooshahay bini'aadanka isku xirnaan iyo xiriir waad la yeelanaysaa laakiin hadhow hadduu meesha ka baxo bini'aadankaasi dhulka ma dhacaysid oo iskaadaad awalba u taagneed marka ku tiirsanaanta bini'aadamku waxa fiican la leeyahay hajtaas inay noqoto adigu marka inaad noqoto sida t-da kale oo qof uu noloshaada iyo mustaqbalkaada iyo wax walba isaga ku tiirsanaado waxa ay kugu dhici doontaa sidaas oo kale kugu dhici doonto sida dhalinyarada la biilo wax la baro noloshaas la qabsaday kuna tiirsan qof iyaga la mid ah asagooda sidoo kale qof oo nolosha xoogaa haaf kamid ah uu ku tiirsan yahay tusaale ahaan oo kale shaqaala tahay qofkan aad u shaqaysa haddii ganacsigiisa maanta uu xirto adigu maanta waxa tahay shaqo la'aan baa tahay marka haaf baad ku tiirsantahay dabcan shaqo kale waad raadsan kartaa laakiin ugu yaraan saameyn bay kugu yeelanaysaa waa eediyo kale iyo inaad qofaad shar tihiin oo wada shaqaysataan tahay markuu yiraahdo anigu maanta ma shaqaynayo waan socdaaho xoolahaygiyaan rabaa adiguna kuwaadiyaad rabtaa oo waad kala baxaysaan ganacsigiina waa kala baxaya shar baa tihiin xiriir kala idinka dhaxeeyo qof baa xiriir idinka dhaxeeyo wax isku darsan jirteen mar walba nolosha qofka wax isku darsan jirteen hadduu maanta wax isku darsi diido dee adigu taadiyaad haysataa noloshu marka waa sidaas markii dowladnimo la gaaro xitaa dowladnimadana Soomaaliya waxa laga yaabaa in dowladda shisheeye ku xiran tahay oo ku tiirsan tahay waliba hadda sida muuqata sida t-da camalan ugu tiirsanahay iyaga tiir ahaan noo ah because cunto ma beerano oo wax kasta dibadda nooga yimaadaan haddii maanta cunaqabata lagu soo rogo Soomaaliya oo la yiraahdo dibadda wax uga imaanay male xaaladdu waa qatar weey sidoo kale amni ahaan dowladaha shisheeye aan ku tiirsanahay sidoo kale waad aragtaa diblomaasiyad ahaan iyo awood ahaan markiina la ku soo xadgudbo waan dowladaha shisheeye inta u tagnaa waxaan iraahnaa diblomaasiyad iyo waxaan sameynaa isaga caabinta noocaas aan sameynaa iska caabin kala maleeyeen awood haday noqoto dhaqaalaha haday noqoto system haday noqoto wax aanu madax banaanahay ma jirto ti camalan ugu tiirsanahay ugu yaraan inaan gaarno xitaa uma dhowin oo dowladaha qaarna inaan wax uga baahano inaguna qayb kamid ah kabano heerkaas xitaa ma joogno haj inaan gaarno iska badhaaf waa meesha ugu fiican oo inaan dowladaha waxa naga dhaxay iskaashi ee diblomaasiyad midii far nagu soo taagta laba farood aan ku taagaynaa heerkaas inaan gaarno haj noqono oo madax banaanideena u istaagno oo dowladnimadeena amnigeena aan qaadano sidoo kale dhaqaalaheena aan anagu mas'uuliyad ka noqono wax beerano dowladii waxeeda noo soo dhoofsanaysana waxeena inaan u dhoofsano ganacsigu noqdo sharing xitaa heerkaas uma dhowin laakiin waa heerka dunidu hadda ku macaamiisho dowladaha qaar heerkaas sii maraya qaarna waa ay ka gudbeen oo
dad baaba iyaga ku sii tiirsan oo waxay leeyihiin cidaan annaga nagu tiirsanayn ma noolaa karto waxa Mareykanku hadda sameynaya waa la socotaa haddaba adeeg aragtidaada heerkaas inaan gaarno ma u diyaarsannahay suuragalna ma tahay aragtiduna muhiim xagga safaalada nugreb wassalaamu calaykum